bismillahi raxmaan raxiim sida muuqato maamulka koonfur galbeed iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaa ka dhex aloosan dagaal aad u qaraar oo ku saleysan qabashada iyo qabsoomida doorashada ee uu ku dhawaaqay maamulka madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen uu doonayo inuu doorasho u gaara ku qabsado halka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna uu doonayo inuu ka hor istaago doorashadaasi isaga oo raba in uu dalka sida uu horey u ballan qaaday u jeeyo doorasho qof iyo cod ah balse tareenkii Xasan Sheekh Maxamuud waxaa ka degay madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen oo khudbadiisii ku sheegay in madaxweynuhu uu dacfaruur iyo uu ku soo dhisayo tiimam kale oo ka aragti duwan rabana inuu maamulka koonfur galbeed burburiyo warqad ay soo saartay maamulka koonfur galbeed waxay ku sheegtay habraaca xulista baarlamaanka ah kadib waxaa la filayaa in doorashadu ay u dhaqaaqaan guddoonka baarlamaanka ah waxaa xigana in madaxweynaha koonfur galbeed lasoo doorto oo sida muuqata una badan tahay inuu isku caanasho madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen dowladda federaalkana waxa ay maalmahan waday urursi ciidan iyo hub iyadoo ciidan aad u fara badan lagu ururiyay magaalada Buurhakaba ciidankaasoo la filayo in ay weerar ku ekeysiyaan magaalada Baydhabo waxaase dadku isweydiinayaan go'aanka ay qaadan doonaan ciidanka midowga Afrika ee ka socda dowladda dariska aan nahay Ethiopia oo la og yahay inay u xagal daacinayaan dhanka iyo maamulka koonfur galbeed go'aanka ay ka qaadan doonaan ayaa mid aad looga dhursugayo iyadoo la sii sheegayo dadka arrimaha u dhuundaloola in dowladda Ethiopia ay garab istaagi doonto madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen maadaama ciidanka dowladda iyo hubka ay wataanba sida la sheegay uu yahay hubkii dowladda Masar ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ugu deeqday